قصة عجيبة وان آد بأون مشرية قصة دا مصر بيكاد على ويل بقى أبيه وحو كل بصدي عنانت أبو لا يرك الدمي أبو بيها هلا دقالي أبو كورج هاي نجت بيننا الله قاس وحو كشقيني ويل كان برا أكتيفيتي ويل كان جامعة دولكتا الله قول مسكح نسي مالك استوى لها مالين تنقول جان كتج لها حتى الشقه لها ويسكتج لها قول ويل كي وحو نقضي يسوى أبيه احترامه يكعب سنة إنه شقدي يجوري وحكا قبته بيا إلى ليو كردو ميل تبصميو نيوحو نقضي برا أكتفا معنى الدنبين أيا الشغل سودتشي ترتب امتحان مالهم بالي انترفيو وشغل وكلا ساريا بقول أرضي ضربتي هول كي شغل تجي مركو بحيي أيوح الأبو داعد أهو هول كر أهو في الفرعوني هلا جارك صدق عاصو ضدار ويل كواب الشركة دي الباب كبسوق علي الباب كمركل لجليو للريحيو ما أنا كذا الباب كقطار كان صار له قبطه وجبيه سكة صار له جبش محوس حسوستي الباب كان ينقط بيننا الباب كي بسميه مركو الباب كي مرة فاضي بولش يلوتشي وكجد بين ماشي جاردن كي بيها ما عرفتي لقور شيء تري أو حمري توبوي كتيرانو بيه نعيا كذا هذا نيا توبدي بكحري جاردن كلا فاروق أبو تشيدي وكشوي وشركة دي شقة وصوب حي كوريدور كماشي لا يرى كانوا كلا واحد كشيدين وأنا برقم ماشي لومري هولك انترفيو كدعي مثل لا يرى كان شيدان لا يرى كيبو دنشي هولك صوق علي مثل بقول قف بقى هل كان فيل كتبتو قفور بالدقيقة مركل أو رئيستان لا واوي انترفيو هلا أو شقة ما قري كتير dadkii oo dhamaanay aad kusii war dadkaas oo dhawaa la ceershay adigu meesha xukumo haysta sogtahay bal iska sug nasiibkaaga waa loo yeeray howlkii buu galay waa loo sacbiyay dhag maxaa jiray goorma shaqada bilaabaysaa warbin si ay tirif ima magacayga imiina weydiin imana ina wareysan ma ay imtixaanku waa ku baasto goorma imtixaan iga qaadeen kaamirada lagu ceshay sawiradii waa la tusay isagoo albaabkii sameynaya isagoo biyihii saxaya isagoo leerarkii waxay dhahay anagu ma aan raadinayn nin suud xiran oo shahaado watee nin baro active aan raadinaynay oo meesha shaqada ka taagan wax ka qaban kara adaana shaqada lagu qaatay wuxuu soo xasuustay sababta uu ku helay in aabihii uu lahaa uu soo orday gurigii buu yimid soo aabihii ugu mahad celiyo oo raali geliyo bis aan balaas baa ka dhaqaaqday guriga aabihii waa dhintay Allah naxariisto marka qisada wuxuu u qoray painful weeye maxaa yeelay waalidka waxa uu baxshay marka canaantiisu waa barako shaqa lagu helaa wax badan oo dhibaato uga badbaadaysa laakiin ma dhageysana anagu ma dhageysano idan waalidka nasteexadiisa iyo ducadiisa iyo laga faa'iideysto hana loo dhibriyo